taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyihii ururka 162 ee ciidanka kumaadoosta danab ee ka howlgala deegaanada Jubbaland ninka lagu magacaabo Carab Dheeg Ahmed sidoo kale taliyaha cusub ee ururka 162 ee kumaadoosta danab ayaa loo magacaabay Caarif Hire Salaad waxaana xusid mudan in xilka qaadista lagu sameeyay taliyihii hore ay timid kadib markii uu maalin ka hor u jeediyay hadal uu ku dhaliilayo madaxda dawladda iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Carab Dheeg Ahmed ayaa ku dhaliilay dawladda federaalka ah dalacsintii ay dhawaan u sameysay askartii Jubbaland ka soo goosatay ee isu soo dhiibay ciidanka dawladda ee ku sugan Raascabooni isagoona sheegay in dalacsintaasi ay xaq u lahaayeen ciidanka danab ee ku sugan deegaanada Jubbaland Carab oo bartiisa Facebook qoraal dheer ku soo qoray ayaa yiri maanta oo ay taariikhdu tahay 10 bisha 2024 waxaa la iga qaaday xilkii aan u hayay dalka diinta iyo dadka Soomaaliyeed taasoo markii horeba dawladda ii idmatay oo aan u hayay muddo 4 sano iyo 6 bilood ah waxaana ugu shaqeeyay dadkayga dalkayga iyo diintayda in allaale intay awoodeyda gaarsiisaneed aqoontayda iyo kartidayda Carab oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri waxaana u hambalyeynaya walaalkay saaxiibkay Caarif Hire Salaad oo la igu bedelay waxaana isleeyahay waa ninkii ugu mudnaa ee loo dhiibi lahaa allana u fududeeyo shaqada adag ee hortaala waxaana u wareejinaya si sharaf leh oo xushmad iyo qadirin ku dheehan tahay ugu dambeyntii Carab ayaa xusay in uu dib kala soo wadaagi doono ummadda Soomaaliyeed sababta keentay xilka qaadistiisa oo ku soo aaday xilli khilaaf adag u dhaxeeyo dawladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland